بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هالكان كجلينا عشر كان لبعض عشر كلمات وحاول كسبسين هاي سيد الله قرأ في عشر كان يوحى الله تلقى أرض إنه فهمه sida keyboardka xarfaha ku qoran meel kasta meesha ay ka jiraan iyo in uu markaa qori karo ama siduu doono inuu wax qori karo maadaama uu dhexgeli doono barnaamijkani kombiyuutarka ahaa marka ugu horeyso barnaamijkaasi ayaa soo fureysa oo lagu magacaabo wordpad marka farta ayaa weynaysanaysaa farta maxaa laga weynayaa meeshaas ay ses ku qoran tahay kadib sida standardka 11 ayuu standard ku yahay 14 ayaad ka dhigaysaa kadibna qoraalka ayaa bilaabaysaa qoraalka halkaa noogu qoran meesha ugu horeyso waxaa ku qoran academic background oo CV-ga qofka markuu sameysanayo waxaa laga doonayaa waxyaabihii waxbarashadii uu soo maray inuu dib ugu sheekeeyo marka academic markaa qoraysid academic background waxaad ku qoraysaa far oo capital ah maxaa yeelay waa title kadibna waa select garaynaysaa markaad select garaynayso labada dhinac qoraalka dhinacan bidixda ah ayaan hadda joogaa dhinaca kale ee midigtana waa soo mari kartaa dhinaca midig iyo dhinaca bidix markaad soo marayso bahasha wax lagu qoro oo insertion point la yiraahdo waxaad taabanaysaa keyboardkaaga meel ka mida oo inaa eegto loo baahan yahay oo ay ku qoran tahay home iyo end kadibna inta ayaa leedahay meesha hoose ayaa imaanaysaa ama waa select garaynaysaa meesha geeska ayaa muuska geenaysaa kadibna kelig ayaa siinaysaa bold bidas ayaa taabanaysaa maxaa yeelay qayb kasta oo title ah waa in la madoobeeyaa meeshaas ayaan ka fiirsanayaa oo aan ka qorayaa September 2011 September 2014 ayaduna waa bold laakiin capital maaha esta ayaa capital ah esta shift ayaa la qabanaysaa markaad qorayso kadibna September ayaa toos u qoraysaa ilaa iyo September 2014 shift laba dhibcood labadan dhibcood shift ayaad la qabanaysaa badanaa hore waxaan usoo sheegnay shiftiga in loo isticmaalo wax walba oo symbol ah marka ruuxan CV-ga aan ka qorayno hadda waa CV iska example iska ah marka waxaan ka sheekeynaynaa waxbarashadiisii iyo sida uu wax usoo bartay intan ayaduna waa title kale oo subtitle ayaa la yiraahdaa kan kore academy background meesha ku qoranta waa title weyn kan kalena waa subtitle ayadana boldina ka dhigtid ayaa loo baahan yahay Kenya Medical Training College ayuu ka soo baxay ruuxaasi waqtigaas marka meesha uu ka soo baxay boldiga ayaa ka bixinaysaa kadibna waa qoraysaa keeda waa capital M2 waa capital waxyaabahaas capital lettaga dhammaantood oo tida ay ka mid tahay waxaa la qabanaysaa shift hal xaraf kaliya marka aad qorayso waa inaad shift la qabataa Kenya Medical Training College ayuu ka soo baxay marka diploma ayuu soo qaatay oo ku saabsan clinic medicine and surgery marka inta markaad aadid meeshaan hore ee bilowga ayuu ku geenayaa sidee meeshaan Kenya hoosteeda ku imaanaysaa waa inaad tab isticmaashaa tab ayaad isticmaalaysaa oo meeshaas hoose ayaa imaanaysaa ku aadan kadibna waxaa qoraysaa wixii uu qaatay diploma in clinical
medicine and surgery. qaliinka iyo daaweynta ayuu kasoo bartay meeshaas. marka intaan markuu soo bartay kadib haddana meeshaan ayaa imaaneysaa, inta ayaa isticmaaleysaa 2010 bold ayaa ka dhigaysaa, bold shifty iyo end ay isla taaban kartaa meeshaas markaad joogto, ama calaamada muuska intaa keenta klik siin kartaa. taas waa sida heleedka loo saaro. marka boldi ayaad leedahay, kadibna tab ayaad isticmaaleysaa si aad u hoos tagto calaamadahan kale ee Kenya. labadii dhibcood ee hore oo halkan ku qorneed ayaad isticmaaleysaa mar walba. meeshaas ayaa keenaysaa shifty 2 dhibcood ayaad isticmaaleysaa, kadibna 2010 waxa uu soo bartay meeshaas ka qoraysaa. 2010 wuxuu dhigtay Kenya Certificate of Secondary School. boldiga ayaa ka bixinaysaa geeskan kale, mar walba waa inaa boldiga ka bixisaa. secondary education. dugsiga sare ee Kenya ayuu kasoo baxay. dugsiga uu dhigtay inta ayaa dhehaysaa wuxuu kasoo baxay County High School. marka sidaas ayaad u qoraysaa, weli waxaan ku jirnaa sida loo dhigto CV-ga, sida loo qoro. sanadan 1999 ilaa 2005 bilowga hore ayaad ku qoraysaa 1999 laga soo bilaabo ilaa iyo 2005. markaa qorto waxaa waajibku waa inaad select garayso si aad bold garayso. waxaad taabanaysaa Control B, kadibna shift 2 dhibcood ayaad isticmaaleysaa adigoo halka geeska ku tagaysa tab. kadibna waxaad qoraysaa meeshii uu kasoo baxay oo ah dugsiga hoose dhexe oo waqtigaas dhigtay. waxaa laga doonayaa inaad boldiga aad ka bixiso. boldiga haddii uu kaa galo isheleed ayaa saari kartaa, mar kale ayaa boldiga aad ka bixin kartaa. haddaba qoraalkan wuxuu ku sahlayaa in aad si degan u fahamto sida wax loo qora. iskuulka primariga oo kasoo baxay waxaa lagu magacaabaa Ruqa Primary School. halkaas hoose ku qoran tahay Kenya Certificate of Primary School in aad ku aadiso ayaa loo baahan yahay. marka qoraalkaas meeshaas ayaad ka daawanaysaa. waxaa qoraysaa Ruqa Primary School. titlekii hore waanu soo dhameynay oo academic background ku saabsaneed. marka intaas waxay ku saabsan tahay taariikhdii qofka iyo waxa uu soo bartay. haddaba hadda waxaan gelaynaa ciwaan kale oo ah professional qualification, oo macnaha markaas ka sheekeynayo. title kasta aad qorayso waa inaad capitalka wada dhigtaa. titleka marka qoraalka aad samayso kadibna capital waa ka dhigi kartaa, inta aadan qorin ka horna capital waa ka dhigi kartaa. haddaba si aad u qorto qualification waa in aad marka aad qortaa
oo capital ka dhigtaa kaabis loo gaashidaa isla markaas bold ku dirtaa waxaa leedahay professional qualification kadibna inta ayaa isticmaalaysaa meesha hoose ayaa imaanaysaa meesha hoose markaa imaato kadib boldiga waa inaad ka bixisaa waxyaabihii oo qualificationka uu soo bartay ayaad markaas meeshaan ku qoraysaa tusaale ahaan computer ayuu soo akhristay waxyaabaha oo computerka uu kasoo akhristay waxaa kamid ah ads marka hore a horumarinaysaa eeda waa inaad capital ka dhigtaa xaraf kasta eeda markii keligeed ay tahay ama xarafka u horeeya uu yahay capital inuu noqdo ayaa la doonayaa marka computerka badanaa asagaasi automatic capital isaga dhigo certificate in computer application applications waxyaabaha applicationka soo barta waxaa kamid ah ms word ms excel ms excel spreadsheet xarafka markaa qoraalka aad dhamaysa an inaad geliso waa kan ugu dambeeyo marka waxaa ugu dambeeya powerpoint intaas uu soo bartay intan waxaan ku dhameynay title laba title ayaa meesha kugu jirto titleka hore oo academic background ah iyo titleka labaad academic background meesha waxaa ku fahamtay in title walba loo sameynayo capital midda kale warqadan ka daawanayno way bedelanta academic background far gooni ayaa ku qoran ujeeda fartan markaa click siiso meeshaan fiirinaysaa oo styleka farta ku qoran ayaa kusoo baxay Times New Roman professionalka far kale ayaa ku qoran waa qaab kale ayadan marka adigana sidoo kale ayaa ka dhigi kartaa academic background ayaa dooranaysaa marka hore intaa ka dooranaysaa Times New Roman si aad uga dhigto Times New Roman halkan ayaa ka dooranaysaa waxaad dhahaysaa Times New Roman marka farta kalena waa bedeli kartaa si aad u bedesho ayadana waxaad doonto ayaa ka dhigaysaa farta doonto laakiin aniga hadda waxaan ka dhigayaa fartan oo lagu magacaabo farta noocaas ayaan ka dhigayaa marka sidaas ayay isku bedeshay marka dhammaan marka ciwaanada sidaas ayaad ku sii wadi kartaa oo sidaas ayay waxaa lagaa doonayaa ciwaan kasta ama title kasta inaad capital ka dhigto isla markaas aad bold ka dhigto cashirkeeni labaad intaas ayuu noogu eegaya